habeen wanaagsan daawadayaal aniga maxamed cabdi xalaal oo idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabe maanta oo Arbaca ah waa maalinta xanuunka dhimirka dunida sida ay sheegayso hay'adda caafimaadka dunida afartii qofba hal kamid ah ayuu xanuunka dhinaca maskaxda ahi ku dhaca inta uu nool yahay waa dhibaato haysata dalalka dunida oo dhan kuwooda ugu dakhliga hooseeya oo ay ku bixiyaan celcelis ahaan eber dhibic 5 miisaaniyadooda caafimaadka taasi waxa ay ka dhigan tahay in dalka Ghana oo kale halkii dhakhtarba uu daweeyo 1.2 milyan oo qof hadaba iyadoo aysan jirin daryeel caafimaad waxa ay dad badani u weecdeen dhanka daawo dhaqameedka qaar kamid ah xarumaha daawo dhaqameedka ayaa silsilada ku xira bukaanka iyadoo ay dawladdu mamnuucday BBC-da ayaa baaritaan ku ogaatay in xarun kamid ah xarumahaasi ay qafisyo ku xiraan dadka xanuunsanaya Farxaan Maxamed Jamcaale ayaa ka waramaya dhibaatooyinka haysta ayay ka ducaysanayaan dadkan jooga macbadka Mount Horiba ee Ghana ayaa aaminsan in shaydaan uu ku dhex jiro oo ay u baahan yihiin in laga saaro dhaqaatiirta dhimirka oo aad ugu yar Ghana awgeed qoysasku waxay lacag ku siiyaan xerooyinka cibaadada si loo daaweeyo eheladooda waxa ka dhaca macbadyadan ayaa se sheeko kale ah dadka xanuunka qaba ayaa halkan ku nool iyagoo darbiyada ku xirxiran sidan ayay ula dhaqmaan dadka sideenoo kale ah waxaan ay u haystaan inaan gwaalanahay dawladda ayaa mamnuucday silsiladaynta dadka sanadkii tagay balse madaxa kaniisadan ayaa leh waa in isbeddelka loo sameeyo si tartiib ah si aayara ayaan uga sii tegaynaa laakiin ma fududa mana haysanno waxyaabaha aan u baahannahay oo dhan haddii aannu joojinno waxa aan hadda hayno ama shaqada aannu qabanayno waxaa waddooyinka lagu arki doonaa dad intan ka sii badan oo dhimirka kani waa mid ka mid ah 7 isbitaal ee Ghana waa qaali wuxuuna qaadaa kaliya 20 bukaan milkiilaha ayaa aaminsan inaan loo baahnayn in qofka la xirxiro silsiladayntu waa wax khaldan badanaa waxaad fahmaysaa in dagaalka iyo rabshaduhu ay sababaan xanaaq ah in lagu xadgudbay xadgudubyada kuma eko oo kaliya katiinadaynta waxaana loo sheegay in macbadkan ku yaala ee Dumfa laga isticmaalo qafisyo maadaama la mamnuucay silsiladaynta waxaan booqday xarunta anigoo xiran kaamara qarsoon xubin ka tirsan shaqaalaha ayaa iiga warantay sida ay ula dhaqmaan bukaanada dhibka badan anagu silsilada kuma xirno ee waxaan qabnaa qol aan ku hayno laakiin qolkan waxa ka buuxa qafisyo bukaanada oo dhulka jiifa ayaad arki kartaa mid ayaan galay xarunta ayaa sheegaysa in xaaladaha ay wanaagsan yihiin oo ay bulshada ka ilaalinayaan wax ay ku magacaabeen dadka waalwaalan in qof la silsiladeeyo waa mid ka dhan ah xuquuqda bani'aadamka waa sharci daro abukaata ahaanana waan ka soo horjeedaa kadib waxaan u tagnay xarun dhaqameed sheeganaysa in ay caawiyaan dadka xanuunka dhimirka qaba waxaan aragnay 16 nin oo hal qol ku katiinadaysan mid ka mid ah ayaa noo sheegay in halkaas uu ku xirnaa 7 sano silsiladayntu waa mamnuuc tallaabada aan ku joojin lahayn ayaanu ka wadnaa wadanka oo dhan marka hadda kuwa qafisyada gelinaya oo ah arrin ku xadgudbaysa xuquuqda bini'aadamka maxaad ka qabanaysaan taa sidoo kale waxaan tababaro u furaynaa kuwa dadka xirxira ee macbadyada ka shaqeeya iyo kuwa caawiya tababar kadib qofkii wali ku sii dhaqma arrinkan wuxuu noqonayaa qof jabiye sharciga xanuunada dhimirka waa dhibaato haysata dunida oo dhan laakiin dawladda Ghana ayaa ku fashilmaysa inay caawiso kuwa u baahan waa warbixin naxdin leh haddii aynu eegno dhanka Soomaalida iyo heerka xanuunka dhimirka ka sareeyo wadamada inta badan ee caalamka daryeelkooduna uu aad uga liito kan Ghana ee aynu iminka daawanay Soomaalida qabta xanuunka dhimirka waxaa daryeel la'aan u dheer tacadiyo ay kala kulmaan bulshada haddaba si aynu u eegno xaaladooda guud ahaan waxaa qadka magaalada Muqdisho toos ugu jira Dr. Umar Xabeeb oo ah khabiir dhanka xanuunka dhimirka Dr. Xabeeb soo dhawow ku soo dhawow BBC Somali haddii aan ku weydiiyo su'aashayda ugu horeysa waa maxaad ku qiyaasi lahayd heerka xanuunka dhimirka Soomaalida iyo daryeelka ay helaan waa maasantahay maxamed xaraare BBC London waa ku maasantahay sidaad ugu heelantihiin maalintan heerka xanuunka cudurrada dhimirka WHO waxay soo saartay 2011
saddexdii qofoodba mid ka mid ah inuu qofka xanuun inuu qabo qayb ka mid ah xanuunka dhimirka taasi waa dareemaysaa haddii aan nahnay 10 milyan oo Soomaali inay naga xanuunsan tahay 3 milyan waa xanuun aad u balan la dareemi karana saameynteeda markii aad maraysid wadooyinka qaybaheeda kala duwan ee mujtamaca ay ku heelan tahay Soomaalida waxay xanuunka dhimirka kaliya u taqaanaa hal xanuun oo ah waalida qaybo kala duwan ayaa jiro oo ah oo fara badan oo mujtamaca ay gudihiisa lagu cudur xaqiijin laga sameeyo waa gartay lambarka aad ii sheegtay aad uu u fara badan yahay haddaba daryeel intee la-eg ayay helaan dadka intaas la-eg waa mahadsan tahay daryeelka ay sameeyaan aad ayuu u yaryahay balse waxaa soo kordhayo dhakhaatiir mar waliba ku baratay dalka iyo dibaddaba ay u helan xarunta mar waliba kaadirin u ah inay dabiibaan dadka xanuunsan waxaan warbixintan daawanaynay WHO waxay samaysay 3 mashruuc ee ka samaysay Xabeeb Public Mental Health iyo oo ah in silsiladaha laga furo labadaas hay'adood in silsiladaha laga furo dadka xanuunsan ayagoo joogan deegaanadooda iyo guryahooda xuquuqda insaanka ah ma qabo in qof la silsiladeeyo sidaas si lamid ah waxay ku xirxiran yihiin meelaha lagu dabiibo daawo dhaqameedyada mar walba tacadiyada wuu sii kordhayaa mar walba waxaa loo baahan yahay inay la soo xiriiraan bukaanada qaba ee dhakhaatiirta ku howlan xanuunadani waxaa jiro istaraatiiji ay sameeyeen ku dar dhamaystir waa maasan tahay qorshaha 2013 ilaa 2020 maxay tahay waxaa waaye in kor loo qaado hoggaanka caafimaadka ee dowladaha adduunka si ay qof waliba haddii uu yahay xildhibaan haddii uu yahay madaxweyne haddii uu yahay qof waliba oo Soomaaliya oo adduun weynaha ka tirsan in sare loogu qaado loo ololeeyo qodobka labaad maxay tahay in integration primary health care in caafimaadka asaasiga lagu soo daro caafimaadka maskaxda qodobka saddexaad maxay tahay in cudurrada dhimirka in laga hortago waxaa ka mid ah in dhalinyaradii shaqo loo abuuro in laga joojiyo muqaadaraadkii iyo saameynteeda in dal waliba inuu helo aan ku daro dal waliba inuu helo information xog sax ah aad ku gartay Dr. Xabeeb haddii aan su'aal kale ku weydiiyo dhaqanka Soomaalida muxuu ku leeyahay heer intee la eg ayuu ku leeyahay xanuunka dhimirka dhaqan waagii hore intoosan soo bixin saan isleeyahay dhacdaba dalkeena markii uu burburay 2005 Xabeeb Public Mental Hospital waxay sameeyeen hay'ad gaar u taagan oo dalka ka jirta waaye waxay sameeyeen awareness wacyigelin fara badan markaas kadib waxaa jiri jirtay dadka in la soo qabto oo xanuunsan waraabo loo geliyo qolka markii uu sameeyay hay'adaasna waa amaanaya sida wanaagsan ay u dabeebtay dadkaasi heerka weli uu sii jiraa dadkaasi waxay aaminsan yihiin jinni inuu keeno inuu il keento waxyaalo khuraafaad iyo mingiskaba dadkaasi balse mujtamac waxay u baahan yihiin in la iskugu daro daawada rabbi oo quraanka ahayd iyo daawada casriga ahayd in la iskugu daro waa gartay xanuunkan siyaabo badan uu ku yimaada haddaba qofka sidee dadku iyagu isku ilaalin karaan inay ilaaliyaan caafimaadkooda maskaxda okay caafimaadkooda maskaxda waxay iskaga ilaalin karaan marka koowaad inay jirdhis sameeyaan kana fogaadaan muqaadaraadka waa inay sameeyaan shaqo abuur loo sameeyaa qofka shaqo abuur loo sameeyaa midda kale ugu muhiimsan waxay tahay waa in aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waqtiga ayaan helay